waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa dowladda goboleedka Puntland uu madaxda u yahay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo shacabka reer Puntland sida diiran oo wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigayga runtii waxaan iloobi karnaa ma aha waqti hadda aan taaganahay oo bulshada iyo dadweynaha iyo shacabweynaha reer Carmo ay ugu soo dhaweeyeen sida diiran oo waatinimada leh ee Soomaalida leh runtii waa wax aan weligeed midoobi doonin taasna waxay ka turjumaysaa dowlad jaceylka iyo Soomaalinimadina iyo midnimadina ay ka turjumaysaa waa madaxweynaha hadalkiisa oo yiri weli anu meesha Mayman oo Puntland Mayman oo markii ugu horeysay waa runtiis inaan fakar aan qaaday fakarkan qaaday yani wax yar rabaan inaan soo koobo fakarka aan ka qaaday waxa weeye koow Puntland inay tahay meel nabadeed inay tahay meel dadkeedu ay jecel yihiin Soomaalinimada iyo dowladooda ay jecel yihiin meel soo dhaweyn leh muxibbo leh waaltinimo leh Soomaaliyeed taas waxaa muujinaya qarno markaan tagay boqolaalo kun yaa soo dhaweysay waxaan halkaas lagu siiyey hadiyad faras ah markaan ka soo tagnay oo aan nimid waaciye iyaguna waxay siiyeen geel haddana waa maqlaysaan wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda inuu siiyey macnaheedu waxay tahay waa isku kay dhacsan tahay marka haddaan soo taargoobo waan halkan imaado waxaan haystaa rati iyo faras iyo guri marka taas runtii waa kaftan waxay ka turjumaysaa xaqiiqada ka jirta Puntland iyo Soomaalinimadina iyo madax jaceylkeena iyo dowlad jaceylkeena runtii ka turjumaysaa waxaan rabaa inaan hadalkay ku soo gabagabeeyo safar dheer baan sugaya dad badan baa cadceed iyo qorrax loo taagan wax badan meeshaan kama sheegi karno oo aan rabnay inaan idinla qaybsanno oo aan halkan ka soo gudbinno laakiin sanadkan waxay noqonaysaa sanad wanaagsan 2018 wuxuu noqon doonaa sanad dib u heshiisiin oo ummadda Soomaaliyeed ay isku keenayno ummadda Soomaaliyeed isu soo dhaweynayno ummadda Soomaaliyeed isu soo dhaweynayno ummadda Soomaaliyeed aan walaalaynayno iyo noqonaysaa iyo sanad horumar oo ah hadal yar iyo hawl badan shaqo badan inaan gelino dhanka horumarka oo aad sheegteen halkan ka sheegteen inaad u baahan tihiin shaqo abuur in loo baahan yahay maalgashi in loo baahan yahay in la abuuro maxaan ku raadin la xoojiyo oo la hormariyo ganacsatada iyo warshadaha taasna runtii waxyaabaha aan doonayno inaan sanadkan aan qabanno waa mahadsantihiin waxaan rabaa halkan inaan ku daro wasiir soo dhawow dowladdan waa dowlad shacab idinkaana ka turjumaya inay tahay dowlad shacab sidaad noo soo dhaweyseen marka waa inaan sheegno magaalo walba inaan sheegno dadkaa soo dirsateen iyo siday noola shaqeeyaan xayir oo wasiirkaa soo dirsateen waa xildhibaankaa soo dirsateen runtii waa u qalmaa inuu ahaado qofkii idin matalayo waxay tegi doontaa doorasho xalaalaha oo qof iyo codkiisa tegi doontaa waana marka loo baahan yahay inaad ogaataan qofka idiin shaqaynaya oo dowladda kor u qaadaya iyo qofka dowladda madaxaabinaya marka waxaa idiin sheegaya xayir inuu si fiican idin matalo waxa uu ka hadlo oo u badan inta badan ay tahay darihiina gobolka khaas ahaan maxaan ku raahdaa magaaladan
boqol jeer nagala hadlay inaan horumarino maxaan ku rahdaa deegaanka inaan horumarino inaan maxaan ku rahdaa horumarino carmo magaaladan iyo xeradan booliiska saas darteed insha allah waxaan rajaynaynaa inaan kusoo noqon dibna kusoo noqono wax alla wixii horumar ah aan samaynayno idinkuna qaybtiina ka leedihiin maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay inaan cadaalad samayno soo maaha insha allah saasay noqonaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu